kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad waxaan maanta muuqaalkan ku faaqidi doonaa sababaha ilaa hadda loo toogan leeyahay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud oo ah ninkii gubay xaaskiisa iyadoo Puntland ay ka dhacday gaar ahaan magaalada Gaalkacyo xukun dil toogasho ah oo lagu fuliyay haweeney lagu magacaabi jiray Hodan Maxamuud Diiriye oo dishay gabar yar oo saqiir ah gurigeeda ka shaqeey jirtay muddo bilooyin gudahooda ayaa kiiskan maxkamadda la horkeeyay maanta ama shalay waxa la fuliyay xukunka dilka toogashada dadka waxay isweydiinayaan sababta ilaa hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u fulin laadahay xukunka dilka toogashada ee ka soo kala baxay maxkamadaha gobolka Banaadir ee ku aadan kiiska eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud wararkaas oo baraha bulshada la isla dhaxmarayo ayaa dhammaan muuqaalkan ku faaqidi doona waxaana barnaamijka ila falanqeyn doona qadar marka hore ku soo dhawow channelkeena Anisa Daacad baraha bulshada waxa la isla dhaxmarayaa sababaha ilaa hadda loo toogan leeyahay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud oo la og yahay inuu gubay xaaskiisa halka Puntland ay ka dhacday xukun toogasho ah iyadoo muddo bilooyin kaliya ay ka soo wareegatay waa mahadsantahay Anisa adiga iyo daawadayaashaadana waan salaamayaa magaalada Gaalkacyo barqanimadii maanta waxaa xukun qisaas ah oo dil ah lagu fuliyay haweeney haysatay ku dhawaad 12 caruur ah oo la oran jiray Hodan Maxamuud Diiriye haweeneydan haddaan dadka dib u xasuusino dhacdadeeda waxa ay si xun oo fool xumo u dishay gabar jaariyad ama caawinaysay oo la oran jiray Saabiriin gabadhu sida ay xogo tilmaamayaan dhowr jeer ayaa jirkeeda ay dishay oo dhaawacyo kala duwan u geysatay ugu dambeynna si fool xun ayay u dishay iyada oo cunaha ka ceejisay xarig kaga xirtay kadibna sidaas nolosha u dhaafisay laba jeer oo kala duwan ayay maxkamadda gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan dhinaca magaalada Gaalkacyo gaar ahaan kuwa Puntland ay ku xukuntay labada jeerba xukun dil ah iyada oo la soo bandhigay muuqaalo 3 gaaray ah oo dhammaan ay duubtay kaamirada qarsoon ee la yiraahdo CCTV taasi oo muujinaysa arxan darrada ay sameysay haweeneydan maanta dhiigii laga fuliyay Hodan Maxamuud Diiriye wixii inta ka dambeeyay dabcan waxaa jiray odayaal ku hayb ah Hodan oo dadaal xoogan sameeyay xataa Saciid Cabdullaahi Dana uu tagay si ay kiiskan dilka ah u baajiyaan laakiin taasi waxaa diiday ehelka ay ka soo jeedo marxuumadii saqiirada ahayd ee la dilay ee Saabiriin kuwaas oo sheegay in ay ku kala baxayaan maxkamadda cadaaladda oo ay doonayaan in Hodan la qisaaso Hodan ugu dambeyn waxay ka tagtay 12 caruur nin oday ayaa qabay oo 78 sano jir ah magaalada Gaalkacyo banaankeeda ayaa lagu toogtay xukunka qisaasta ah marka saas ku dhacay dad badan baa waxay u doodeen marxuumadii la dilay ee Saabiriin si ay cadaalad u hesho marka waxa la barbardhig ku sameeynaya dilka kadib maxaa xiga oo Muqdisho ka dhici doona Muqdisho waxaan ognahay 2 sano oo xiriir inuu ku xiran yahay nin la yiraahdo Sayid Cali Macalin Daawud ninkaasi dabcan qisadiisa dadka uga sheekeena ma aha oo dabcan way la socdaan laakiin waxaan sameynaynaa wax yar oo xusuusina ninkan wuxuu ku eedeysan yahay laguna helay dambi ah in uu gubay xaaskiisa oo uur lahayd falkaas oo ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 2 bishii 2 2024 oo shalay ku beegneed lagana joogo 2 sano oo buura Sayid Cali Macalin Daawud maxkamadda rayidka gobolka Banaadir dil bay ku xukuntay maxkamadda racfaanku dil bay ku xukuntay maxkamadda sare dil bay ku xukuntay marka waxa la isweydiinayaa maadaama maxkamaduhu dhammaan ay isku raaceen ee ah in ninkan la dilo maxay tahay sababta loo haysto waa dooda ugu weyn ee shalay iyo maanta taagan ee la leeyahay halka ay martay Hodan oo ku eedeysneed ama lagu helay inay dishay gabar yar 2 bil ka hor xukun dil ah Puntland ay ku fulisay maxkamadda gobolka Banaadirna ninkan waa in ay tiirka toogashada geyso oo laga radiyo gacantii iyo arxan darradii uu u dilay gabadhii isaga u dhaxashay dadka qaar waxay soo jeedinayaan ninkan xataa ma mudnaba in dil toogasho lagu xukumo wuxuu mudan yahay qaabkii uu gabadha u gubay in isagana loo gubo inkastoo shariicadu aysan saas qabin oo xukunka diinteena islaamka ay farayso in qofka dil toogasho yani saas uu dhiigu uga baxayo markii la toogto haddana dadku waxay soo jeedinayaan in caruurtii ay ka tagtay Allah u naxariistay luul ay arkaan adeerkood oo tiirka toogashada taagan
waxaa xusud mudan Puntland maanta in ay dhigtay taariikh weyn oo waa haweeneydii ugu horeysay ee la geeyay tiirka toogashada iyadoo dad badan ee falaaqeeya arrimaha siyaasadda ee leeyihiin xamar cadaalad kama jirto maxay tahay sabab ilaa hadda loo toogan lahay Siid Cali oo la og yahay dhibaatadii xooganeed uu u geystay in xaaskiisa iyadoo haweeney intaas oo caruur haysatana ee la dilay dadka qaar waxay isweydiinayaan maxay xilligan caruurtii ay ka tagtay Luul Cabdicasiis qalbigooda ka dhex guuxaya markii ay arkaan sida xukunka dilka ay u fulisay Puntland halka dawladda Soomaaliya ilaa hadda Siid Cali aan la fulinin waa su'aasha ugu badan oo dabcan hadda waliba eeda la raacinayo oo dawladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh iyo Xamse ugu horeeyaan ay ku guul dareysteen in ay tiirka toogashada geeyaan Siid Cali sababtoo marka la eego maamul goboleedyada hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya cadaalad marka la eego waxa ugu fiican koonfur galbeed qofku markuu qof dilo isla maalinka xigta tiirka toogashada la geeyay yacni waa xeer u yaala maamulkaasi oo qofkii qof dila jufadu rabaha ka soo jeedo in tiirka toogashada la geeyo waana wax ay diinteena suubana islaamku ay qabto Puntland ayaa marka waxay raacday wadadii koonfur galbeed oo kale oo qofka hadduu qof dilo oo lagu helo inuu kas u dilay يعني وحي هذي كم كل عن حتى دينيا بالوفيلين لكن قف يسوي ميركيسو تامي هاي وأنا عبسنين خمرية وحكلتون أنا عبين وقف توسود لو قف كله تير كتوغشد إن لجيو dadku marka waxa isbarbardhig ku sameeyaan sawirkii Allahu naxariistay hodan iyo waxa isku dhijinayaan iyo sawirkii Siid Cali sidaas maxaa isku dhijinaya sawirkii gabadhii la dilay iyo maamada hadda xukunka dilka toogashada lagu fuliyay oo la leeyahay dhammaan waa inay cadaalad u sinaadaan madaxda dawladda Soomaaliya ay ka shaqeeyaan in ay cadaalad helaan ehelka iyo qoyska sidaas la mid ehelka iyo qoyska ay ka soo jeedo marxuumad Luul Cabdicasiis dhowr jeer waxay sheegeen inay diideen inay diya qaataan inay diideen inay xataa qaataan lacag dhan 5 milyan oo dollar ilaa 6 milyan oo dollar oo ninkan lagu siideynayo jufada uu ka dhashay ninkan Siid Cali ee beesha Habargidir reer Xaaji Saleemaan laftirkooda waxa lagu eedeynayaa inay lacag malaayiin ku bixinayaan sidii ninkan u siideyn lahaayeen iyagoo raba inay ka badbaadiyaan tiirka toogashada inkastoo maxkamadaha gobolka Banaadir ay isku raaceen marka hadda waxa la isbarbardhig ku sameeynaya heerka cadaaladeed ee taala Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 3 milyan oo qof iyo heerka cadaaladeed ee taala Baydhabo ama sidoo kale Garowe waxa la leeyahay ninkan Siid Cali yiraahdo hadduu maanta ku sugnaan lahaa koonfur galbeed ama magaalada Baydhabo uu joogi lahaa xilligan la islama soo gaareen tiirka toogashada ayaa la geyn lahaa qabiilku rabaha ka soo jeedo ama laandheeraha noqdo ama laangaab ha noqday tiirka toogashada ayaa la geyn lahaa marka waa isbarbardhigga ugu weyn ee maanta la sameeynaya iyo falanqaynta ku aadan ninkan maxaa xabsiga loogu hayaa xataa wararka qaar oo xana waxay leeyihiin oo baraha bulshada la soo galay ninkan maba ku jiraba xabsi oo wuxuu ku jiraa guri dusha ka dadan waa in raaxa ku jira taas oo ay dad badan leeyihiin heerkaas inuu ninkan intaaba uu sii noolaado maba ahaynba waxay ahayd in tiirka toogashada la geeyo khadra waa mahadsan tahay ma la isdhihi karaa dawladda federaalka Soomaaliya xilligan uma jeedaba inay toogato eedeysana Siid Cali Macalin Daawud maadaama saddexdii maxkamadda ee gobolka Banaadir ba ay ku xukumeen xukun dil toogasho intuu xiran yahayna ay ka soo wareegatay muddo 2 sano ilaa hadda dawladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii xukunada kala duwan ay ka soo baxeen maxkamadaha aanan laga heenin wax war marka sida dadka ay sheegayaan ma la isdhihi karaa in Siid Cali aanan balowdan batiirka toogashada يعني ورر بالمالمي حتى مالك قبل حكم كذا سيدا صورة واحد قبل اللي جوي أنا كولا نين كوا وجود وحلاقة سوق بتجي الجدود بيش وكسو جدا نين كان هبر جدير غير حاجة سليمان يجو جهد حوج يحالد وحيكون بحنيان إن بيشا قبل عبد لول كسو جدو أو بيشا شيخالة إن ديقاتان diyadaas marka la isku fahmilahay odayga dhalay wuxuu leeyahay anu wax diya oo aan qaadanaya ma lahan tiirka toogashada la eegiyo sidoo kale war kale oo daciif oo soo baxay isna wuxuu leeyahay maadaama caruurta ay dhashay Luul Cabdicasiis ay yaryar yihiin oo midka ugu yar uu jiro 12 sano ilaa 13 sano uu jiro caruurtaas intay ka qaangaarayso ayaa la sugayaa maadaama iyagu qisaasta ay leeyihiin marka diiniyan la eego wararka qaar saas ay leeyihiin wararka qaar waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka caajisaya ama uu ka cagajiidaya inuu saxiixo sababtoo maxkamaduhu markii ay dhammaan isku soo raaceen dilka toogashada qofka la raba inuu saxiixo sidii qofka loo toogto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la leeyahay waxa saaran culays dhinac walba oo kaga iimaanaya beesha Habargidir oo ku aadan bal in ninkaasi
aan la dilin oo labada qabiil ee sheekhaasha iyo sidoo kale habar gidirtu si hoose ay arrintan uga hadlaan yacni wararkaasoo dhan baa suuqa ku jira laakiin odayga dhalay luul cabdicasiis dhowr jeer wuxuu sheegay inuusan isagu diya qaadanayn inuu ku qancayo keliya oo laabtu ay ugu qaboobayso in tiirka tooshada la geeyo sayid cali macalin daa'uud waxaan ognahay in luul cabdicasiis aabaheeda cabdicasiis sida uu mar walba uu baraha bulshada uu u taagnaa isla markaana uu ugu helanaa inuu gabadhiisa uu cadaalad u helo tan iyo markii maxkamadaha ee xukunada kala duwan ka soo baxay luul Allah u naxariistay la aasay ilaa hadda aba cabdicasiis luul aabaheeda wax war ah lagama helin ma la isdhihi karaa niyad uu qaaday darteeda ayuu xilligan uu la aamusan yahay jawaabtu waxay noqonaysaa labo mid waa tan hadda ka dhawaajisay oo ah wuxuu waayay cadaalad ah in gabadheeda ninkii dilay uu weli xabsi ku jiro oo ay tahay in tiirka toogashada la geelay wararka qaar waxay leeyihiin maxkamadaha gobolka banaadir ayaa dhammaan waxay u yeereen labada dhinac qoysaskooda waxayna ku amreen ilaa inta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka saxiixaya dilka ninkan uu xabsi ku sugayo isla markaana xabsi uu ku sugnaanayo iyaguna ay yareeyaan hadallada xanafta leh ee bulshada sii kicinaya ee baraha bulshada dabcan la isku marinaya marka labada warba way soo baxayaan warka koowaad oo ah in odaygu xoogaa niyad jabay oo uusan sidii hore u firfircooneen iyo warka labaad oo ah in maxkamaduhu ay ku amreen labada dhinac inay yareeyaan gaar ahaana aaba cabdicasiis in uu yareeyo hadallada xanafta leh ee uu maxkamadaha u jeedinayo dowladda u jeedinayo taasoo dabcan kicin bulsho ay u arkaan iyagoo leh ninkan waa xukun suge xeerka maxkamadduna waa ay soo xukuntay saxiixa madaxweynaha ayaana la sugayaa waana la tooganayaa ee hadallada yare yacni wararkaasaa soo baxaya iyaguna ugu dambeyn maxaa ka baran karnaa xukunkii Puntland ay riday isla markaana dilka toogashada lagu fuliyay hodan maxamuud diiriye bulshada Soomaaliyeed awal waxay islaayeen Puntland marka la eego ma yaalo xukun la xiriira arrimahan qofku inuu qof dilo oo tiirka toogashada la geeyo Puntland sidoo kale waxa aad loogu eedeyn jiray in qofku markuu qof dilo qabiil ahaan uu hoosta ka gali jiray yacni gabadhan hadda gacanteeda ku dishay gabadha kale waxay ka soo jeedaa qabiilada ugu awooda badan ilaahba awood leh ee deegaanada Puntland gaar ahaan beesha degta magaalada Gaalkacyo yacni warkaas oo dhan wuxuu noqday marka hal bacaad lagu lisay oo waxay noqotay sheekadu qofkii qof dila in tiirka toogashada la geeyo ciddu doonaha ka soo jeedo qofku warabana ka soo jeeday sidoo kale xukunka waxa laga baran karaa in dawladda Soomaaliya ay ku tusaale qaadato xukunkii lagu fuliyay gabadha aan hodan la yiraahdo oo ay isna xukun ku fuliso ninkan eedeysanaha ah ee gacanta dawladda ku jira kaas oo ehelkiisu ay u dhagtaagayaan xukunkan marka uu dhici doono qadar aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad inoogu falaaqeysay labada xukun ee ka kala dhacay Muqdisho iyo sidoo kale Gaalkacyo wixii xooga ay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelkan furasi ku soo gaaro muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada 20 daqiiqo